habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada wararka Soomaali Channel waxaana ugu waaweyn maanta sarkaalkii labaad oo saacado kooban lagu dilay Muqdisho iyo sidoo kale warar dheeraad oo ka soo baxaya kii hore dilkiisa askar maanta Muqdisho isku rasaasaysa iyo arday ku dhaawacantay israsaasaynta nin ka soo dhacay dabaq sare lana arkay subaxii hore ee saaka isagoo dabaq kale yaala dowladda Soomaaliya oo mas'uul xilka uga qaaday xisbi oo ka mid noqday awgii xaaladda magaalada Beledweyne oo kacsan iyo isqabsi u dhaxeeya maamulkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle al-shabaab oo la wareegay deegaanka Afurur ee gobolka Bari iyo xuutiyiinta oo iyaguna qabsaday deegaano hoostaga amaba ka tirsan Sacuudi Carabiya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawanaysan wararka Soomaali Channel markana saaxiibayaal warkii oo dhan magaalada Muqdisho waxaa saacado kooban lagu dilay sarkaalkii labaad marka laga soo tago sarkaalkii Cali Said la oranayay meydkiisa laga arkay xerashalare ee degmada Xamajajab ee gobolka Banaadir sarkaalka labaad ayaa isaguna Cabdiwahaab Aadan lagu magacaabay waxaana dilkiisa uu xalay xilligii dambe ama salaada subax markii ay soo dhaweed uu ka dhacay halka loo yaqaan wadada dabka ee Muqdisho askari kale oo booliiska ka tirsan ayaana dilay sida ay wararku sheegayaan sarkaalkii hore loo dilay faahfaahin ayaa ka soo baxaya waa Cali Said waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in wali booliiska gaar ahaan laanta dambi baaristu ay wado baaritaan ku aadan in isaga la dilay iyo inuu isdilay iyadoona dadka wax falanqeeya ay leeyihiin ninkan isma dilin dad ayaa dilay taliye ku-xigeenka booliiska General Zakiyana waray soo saartay waxay tilmaantay in loo baahan yahay inaan laga hordhicin baarista booliiska oo laga warsugo sarkaalkan maanta la dilay iyo kii hore ayaa dhammaan ka wada tirsanaa booliiska Soomaaliya walaa ayna saraakiishu arrintaasi ka muujinayaan baaritaanada socda ayaana laga warsugayaa isla Muqdisho wararkeeda ayaan ku jirnaayay israsaasayn ayaa askar ka wada tirsanayd booliiska Soomaaliya waxa uu ku dhaxmaray halka loo yaqaano wadada Tarabuunka ee Muqdisho degmada Hoodan ka tirsan israsaasaynta ayaana waxa ku dhaawacmay labo kamid ah arday halkaasi marayay oo gaari saarnaa ardayda ayaana dhaawacyo fudud soo gaaray iyadoona sidoo kale askarti la xiray sida wararku ay sheegayaan ninkan aad arkaysaana waa isla wararkii Muqdisho waxaa la arkay isaga oo dabaq sare ka soo dhacay isla markaana dabaq kale ku dhacay waa uu qarway ama riyo ayuu ku jiray sida isaga eheladiisa dadka qaadayba ay sheegeen xalay ayuuna falkan ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ninkan ayaa qarway dabaq sare ayuu ka soo dhacay isagoona ku dhacay dabaq kale waxaana uu jajabay lafa muhiim ah sida laf dhabarta oo kale ninkan kale aad arkaysaan amaba markan haddii aan eegno sarkaal ama xubin ka mid ahaa guddiga madax bannaan ee isgaarsiinta qaranka ayaa waxaa xilka qaadis ku sameeyay xubinnimadii ka qaaday wasiirka isgaarsiinta iyo boostada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan mas'uulka xilka laga qaaday ayaa ah midka sawirkiisa dhanka kale ama dhanka bidix uu ka muuqdo waxaana lagu magacaabaa Cali Shaamey xilka qaadistiisana waxaa loo cuskaday inuu ka mid noqday xisbi siyaasadeedka horu socod wasiirka ayaa warka ka soo baxay waxa uu ku sheegay in ninkan xisbiga ka mid noqday awgii xilka uu ku waayay isaguna iyo dadka kale ee wax falanqeeya waxay leeyihiin xilka qaadistaasi ma ahan mid loo maray wadadii sharciga ahayd magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan haddii aan eegno waxaa ka taagan xaalad kacsanaan ah waxaana xaaladan ay salka ku haysaa maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii gobolka Shirjarayd shalay uu qabtay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu ku sheegay in madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu gobolka kula dhaqmay cadaalad darro isla markaana lacagta gobolka isaga uu lunsanayo madaxweynaha Hirshabelle ayaa eedeyntaasi kadib waxa uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxaana uu magacaabay mas'uul kale oo gobolkaas uu magacaabay oo ninka sawirkiisa aad arkaysaan laguna magacaabay isaguna Cali waxaana wararkii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan ka imaanaya sheegayaan in sidoo kale Yuusuf Dabageed uu diiday xilka qaadista lagu sameeyay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan oo gudoomiyihii u horeeyo khilaafka u dhaxeeyana waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada Beledweyne oo shirar kala gooni ah ay ka dhacayaan gudoomiyaha cusub ninka loo magacaabayna in xilka uu la wareegayo la doonaya Yuusuf Dabageedna oo xilkan laga qaaday waa uu diiday in xilka qaadista lagu sameeyay gobolka Hiiraan ayaa waxaa sidoo kale xusid mudan in dhibaatadiisu ay noqotay mid muddo soo taagnayd muddada xilka uu hayo Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabelle waxaa gobolka Hiiraan uu magacaabay 4 gudoomiye gobol oo kii ugu dambeeyay maanta magacaabistiisu ay ahayd ee uu soo saaray ee Mudan Cali uu ugu magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan gobolka Bari haddii aan eegno deegaanka la yiraahdo Afurur oo aad ugu dhow magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa wararka imaanaya ay sheegayaan in ay la wareegeen al-shabaab
al-shabaab ayaa la wareegistooda deegaankaasi waxay timid kadib markii ciidamadii halkaasi joogay ay heleen xogta in al-shabaab halka kusoo wajahayn isla markaana isaga baxeen. deegaankaasi ayaa dhowr bilood ka hor waxaa al-shabaab ka saaray ciidanka maamulka Puntland kadib dagaal halkaasi ay kula galeen. maamulka Puntland ayaa waxa uu wajahayaa caqabado badan oo dhan kasta ah. gobolka bari al-shabaab iyo Daesh ayaa deegaano badan ku xoogan, halka Sool iyo Sanaagna ay isku horfadhiyaan Somaliland oo ay isku hayaan gobolkaasi. waxaana wararkii ugu dambeeyay deegaankaasi ay sheegeen in al-shabaab ay weli gacanta ku hayaan, iyadoona aan eegi doono wixii warar ay kusoo kordha. ugu dambeyntiina qodobka ugu dambeeya markaan soo qaban Xuutiyiinta ayaa gobol la yiraahdo Nakjar oo Sacuudi Carabiya ka tirsan, gaar ahaan dhaca koonfurta dalkaasi Sacuudiga, ay qabsadeen deegaano ka tirsan gobolkaasi. afhayeen u hadlay Xuutiyiinta wuxuu sheegay in dhowr meelood oo saldhigyadii gobolkaasi ka mid ah ay iyaga gacanta ku hayaan. cabsi badan ayaana laga muujinaya in Xuutiyiintu ay sii ballaariyaan deegaanada ay kaga soo yihiin Sacuudi Carabiya. waxaa lagu xasuustaa gantaalada ay la dhacaan gudaha Sacuudiga iyo magaalooyinka barakaysan. Xuutiyiinta ayaana shirarkii ugu dambeeyay Sacuudiga ka dhacay looga hadlay, waxaana ay wajihi doonaan caqabado iyo sidoo kale dagaal hor leh, inkastoo dagaalka Xuutiyiinta iyo Sacuudiga u dhexeeya uu saameynta ugu badan ku yeeshay dadka shacabka ah ee Yemen u dhashay gudaha dalkaasina ku nool. guud ahaan wararkeeni waa naga intaas. waad mahadsantihiin la socodkiisa. nabadgelyo saaxiibayaal.